بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا عبد القادر الشيخ وإذن سو gudbin doona barnaamij ku saabsan waxbarashada afka Soomaaliga oon ugu talagalay ardayda qurba joogta ama degan wadamada dibadda gaar ahaan wadanka Sweden iyo wadamada deriska la ah iyo gaar ahaan iyo guud ahaanba ardayda qurba joogta ah oo dhigata fasalada koowaad ilaa iyo fasalka sagaalaad ee dugsiga dhexe. runtii waxbarashadan waxay ku saabsan tahay waa xilliga xagaaga ah haddii alla idmo waanu soo gudbin doono casharo ku saabsan afka Soomaaliga barashadiisa waxaanu kusoo gudbin doonaa aaladda online-ka ama fogaan arag ahaan ayaan usoo gudbin doonaa. Waxaan isticmaali doonaa Google Meet ayaan isticmaali doonaa oo ku xiran Gmail-ka. Marka waalidiinta doonaysa carruurtooda in ay xoojiyaan ama ay maaragtay horumariyaan luqadooda afka Soomaaliga ah waxaa loogu talagalay barnaamijkan oo socon doona waqtiga xagaaga ah. wuxuuna ka kooban yahay dhowr maaragtay fasalada koowaad fasalada maaragtay koowaad ilaa iyo saddexaad afaraad ilaa iyo lixaad fasalka toddobaad ilaa fasalka sideedaad iyo fasalka sagaalaad oo aan ugu talagalnay casharo gaar ah. waxaa kaloo jiri doona casharo aan ugu talagalnay dadka waaweyn ama dadka doonahaya in ay horumariyaan luqadooda afka Soomaaliga xagga qoraalka ama xagga akhriska. waxaa kaloo jiri doona casharo aan ugu talagalnay ardayda ama aan idhaahdee macallimiinta aan ugu talagalnay ayaa jiri doona gaar ahaan macallimiinta dhiga afka Soomaaliga ah ee ku nool dalka Soomaaliya ama meel kasta ay joogaanba ku saabsan qaabkii loo horumarin lahaa naxwaha afka Soomaaliga. runtii aqoontu ma lahan wax la yidhaahdo wax kooban maaha waa wax mar walba horumaraysa oo la doonayo in macallinka uu horumariyo aqoontiisa. marka casharada waxaan ugu talagalnay waxaa ka mid ah dhowr qayb ka kooban yihiin runtii oo arday waliba waxaan xoogga saari doonaa meesha markaasayta u baahan yahay ama dooni xoogga uu saaro. casharada waxaa ka mid ah xoogga saari doona akhriska baa ka mid ah hadalka baa ka mid ah doodaha baa ka mid ah ereyada baa ka mid ah naxwaha qoraalka baa ka mid ah iyo qaybaha qoraalka uu qaybsamo. qoraaladu way badan yihiin oo dhowr nooc ayaa loo qaybiyaa. waxaa ka mid ah qoraalka la yidhaahdo sheeko caadi qofka inuu qoro ama sheeko kooban sheeko maaragtay oo xogaa dheer oo la yidhaahdo novel inuu qoro qofkii. waxaa ka mid ah inuu qori karo ogeysiis ama notice inuu qori karo maaragtay qoraal maaragtay wax tilmaamayo oo sida loo isticmaalo ama sida receptiga raashinka loo kariyo si loo kala horumarinayo ama waxyaabaha cuntada ku saabsan. waxaa kaloo ka mid ah sida warqad loo qoro sida warqad shakhsi loo qoro ama warqad loo qoro maamul oo loo qoro maaragtay dowlad loo qoro ama maamul maaragtay ka tirsan iskuulkaba loo qoraba. iyo waxaa ka mid ah qoraalada doodaha ku dhisan sida maaragtay maqaal baa ka mid ah ama incendiary ama maaragtay qoraalada wargeeska loo qora baa ka mid ah. debate article waa dood asagana qoraal dood ah ayaan bari doonaa. waqtigu waa kooban yahay waxaan isku dayaynay arday walba meesha bahadiisa tahay inaan kaa qaybtirno. waxaa kaloo jiri doona qoraalada ku jiri doona qoraalka marka la baranayo wuxuu ku saabsanaan doonaa qoraal maaragtay sheekooyin ah ama qoraal cilmiga bulshada ka sheekeynayo bulshada qaabka ay u dhisan tahay qaabka ay u degan tahay qaabka ay u nooshahay sida maaragtay ay u dhaqanto iyo maaragtay sida ganacsigeedu uu yahay xiriirka ay la leedahay bulshooyinka kale oo dariska la ah hadday ahaato tusaale wadankii hooyo haddii kale maaragtay wadamada dibadda ay degan yihiin carruurta wadamada dariska la ah xagga dhaqanka baa ka mid aan ka hadli doonaa. xagga dhaqanka waxaa soo gelaya maaragtay waxyaabaha dadka ay dhaqan ahaan u leeyihiin waxyaabaha maaragtay soo gala sida luqadda lahjadaha baa ka mid ah. waxaa soo geli doona qaabka bulshadu ay u dhismato qoysaska ay u dhisan yihiin. marka runtii casharadaas waxay noqon doonaan xilliga xagaaga ah waxay bilaaban doonaan bisha haddii alla idmo July ama Luulyo ayay bilaaban doonaan labadeeda waa maalinta Arbacada ah. marka saddex qayb ayaan ugu talagalnay warqadda kor ku qoran si fiican u akhriso waxay ku saabsan tahay qaybaha iyo waxyaabaha maaragtay aan soo bandhigi doono ama aan dadka gaarsiin doono ardayga hadduu hal qof yahay iyo hadduu laba qof yahay iyo dadka waaweyn iyo macallimiinta labadaba saddex qayb baan ugu talagalnay. marka meesha waxaa ku qoran qarashka qofka raba inuu iska bixiyo iyo qaabka uu iskaga bixin doonaba labadaba waxaad nagala soo xiriiri doontaan. kani waa jadwalkii runtii intaanan u gelin qaabka maaragtay meelaha aan nala soo xiriiri doontaan tan waa jadwalkii aan ugu talagalnay oo wiigii oo dhan baan dhigi doonaa hal maalin keliya ayaa bannaan. inta kale waxa weeyaan waxaan ugu talagalnay maalinta sabtida oo kale ardayda fasalka koowaad ilaa fasalka saddexaad. maalinta isniinta waxaa laba cashar baa jiri doona fasalka afaraad fasalka lixaad
iyo fasalka toddobaad ilaa iyo fasalka sideedaad baan u talagalnay talaadadaas oo kale waxaa jiri doona fasalka sagaalaad casharka la siin doono maalinta arbacada isaguna 2 cashir dib baan ugu soo celin doonaa oo dadka kale fursadda heli waaye ayaan sidoo kale arbacada iyo khamiista iyo jimcaha ayaan siin doonaa laakiin jimcaha waxaa jiri doona cashir macallimiinta loogu talagalay khamiistana ka koraysta waxaa jiri doona cashir dadka waaweyn aan ugu talagalnay haddaad u baahanto inaad la soo xiriirto waxaad nagala soo xiriiri doontaa aderesyada ama taleefanada hoos ku qoran labadaa telefoon ayaad nagala soo xiriiri doontaan haddii aanu ka maqannahay message noo dhaaf waanu kugu soo jawaabi doonaa ama gmailka meesha ku qorno naxwaha soomaaliga@gmail.com ayaad nagala soo xiriiri kartaa marka waxaan idin leenahay ha ka harin boosasku waa kooban yihiin u baro afkaaga hooyo si xirfadaysan aqoonta afkaaga hooyo waa sumadaada iyo maaragtay kan ubadkaaga labada weeyaan macnaha ardayda waxaa la ogaaday warbixino badan ama baaritaan badan la suubiyey in arday waliba intuu aqoontiisu afkiisa hooyo la eg tahay in aqoontiisanu horumarayo waxaa kaloo la ogaaday ardayga marka uu da' noqdo ama weynaado hadduusan afkiisa garanayn inuu maaragtay ay dhumaysa sumadiisa uuna noqon doono qof aanan bulshadiisana ku xirnayn bulshaduu la degan yahana ka tegey meel dhexe ayuu qofkaas istaagaya oo dhibaatooyin xagga maarta nafsiga ayaa laga idin ku dhaca haddaba haddii aan doonaysa inaad nala soo xiriirtaan nagala soo xiriira adarashada halka ku qoran waxaana idinkaga tegaynaa waa macalin cabdiqaadir oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo